هذا الكأنجلين مقان يقفنها يويل كان وردير حسن إلى يوم عرفت سنتها لبده ويل أو كل شيء عباسوينه هذا مساجد يوجر ساودا ككلا شيء هرت مقان بل قعنا أن مركر وتاعنا قعنا كر أنو تاعنا مقان يقفنها مقان إلهي قيران سي لكن هذا مساجد أهان كونوا يعني يلانن أن نقولنا ضد أحد له أو مسلمين يسيلنا أن نقولنا ودردارن هذه مساجد وحنا كم قانون دوني نام بجرين بوهذا نجام قان وردير سوما شيء وردير وحناس يا صور شيء تسكي ما اسمه وردير حسن عبد الكريم هداد نهار فردي نكيس نوكيني مقادي واينينا نكيس نوكيني مقادي واينينا نكيس نوكيني وانك عم باش فرديو سنتي وجير أقول لو قبوا لقى سو أبتريي في وجير أي فلسطين أي جديين ميل كسر سد هذا جيسوده وجير نك أمانة لقط المام وانك عم باش فردي نك أنا قارنه وبرو مجموعة قفنا حكود دارين عاد مساجدة رجي لقى سو بحي عاد مساجدة سنة تاعي ورديري عبد الرحمن واجوبان واحد لقونا نقنا بملعتن هوشاس waxaan u maleynaa anagii gudigaas ay u taala meelihii kala oo ma aragtay inaan wax ka toogno inaan aadnamo ogeey kumaba dambeelaysid aad masaajida maxay yeel ragii laga soo xulay yaa joog shaqada haday ka qaban waayaan iyo annaga taas hool annaga noo taalo way laguma dambeelay maxay yeel shalay markaan ku keenayni wardheera annagoo qabiilaha isu keenkan qabiil annagoo dadkii ayaga ay waajogaan hadana taladii way hayaan waxaan u maleynaa aad masaajida waxbaba isku mashquulin waa la joogaa shaqada annaga wadayna si alla sidaad rabtaan u wadayna insha Allah waan ana kortaada waxa la yiri shinni waxa la yiri fadhiidi iyo foofto kuwii fooftada hay marka hore warkaan nisiyeen mar hore aan soo qaadnay banaka anagu waa fadhiidii way kuwii shinni malabka hagaajinaa way hadda malabka bishii sideeda taariikh 908 ayaa foqsanaynaa waxay hays ilaala ka dhan tiimkan hadda socdo mudan gafar asugaamina aadi ay shaqo u soo badneed labadan wiilo dhibiti gafar sanadka kala ah habaasweyna barmar isguul ay ka bilaabeen shali odayaasha noo imaaday oo reer tarbajire cilasahay dawladda haday dhacdo nasiib darro aad masaajida ay habaaseen oo lahaaday maxay wiilasha meesha kala imaaday war meesha saas ku dhamaaday annaka warkaayna tarbaja rabna inaan ka doono quraan ka tognaan rabnaa tarbaja aba tan qur loo ma soo kacaayo ma ta kadib waqti lama soo gelinaayo dadkeedii waa joogaa cidaba ahayo cidaba maamula cidaba ka dhashay waxaas kuru u warsanaay male kura jeebkiisu ku jiraaba wuxuu weydiinayo male marka walaalayaal adduunkan hadda waxay noqotay gurub sida arka gurub ay noqotay reer hebel ma jirto gurubka isfahm ya israacay hada waxaan u maleynaa annaka hadii duqaan maxamed liiraha noo imaaday waa isfahanaan u maleynaa marka aad masaajida waa magaaladaada sida la sheegay kuru wax annaga aan soo weydiinayna maaha tarbaja iyo dhulkaas ka raadso dhulkan waa dhulkaada dhulaad ku oo wax u soo raadinaysa maaha jazaakumullahu khayran waxaan idin leeyahay عبد الرحمن ورديري annaga yaa ka shaqeynayna dhulkan meel kale wax nooga doona meesha nahaba ku soo noqonina waxba ku soo noqon Maxamed Ali waa qaadan tahay ma aha wajeerna waa la qaana ninka kale oo wax ka keeni kara ama wax jeer bedeli kara waa adiga dhismaan dawladdan way dhisantay insha Allah taasan baa in ka hadlaya taasan baa sheegaya oo qarsooneen oo banaanka yaasha labada gacmood idinku qaadna reer aadam masaajida hadaan nahnaan ku soo dhawaada gacmo furan wardere tosha guulayso wiliga ha cabsanin gadaalna ha marin gadaashaadan taagan na sisi tuko hapa kama watu wa kutoka huko down Kenya na sisi tutafurahia sana kumpatia kura mwenzetu ambaye ni Mohamed Elmi kwa sababu tunajua ni mmoja wetu na bado tuko hapa, bado tunahitaji kiongozi mwenye ni mzuri, mwenye ataweza kuongoza. Hakikisheni tuko hapa na tuko wengi. Tuko zaidi ya 400 wale ambao wako hapa na wale ambao wamechukua kura za hapa.
Kwa hivyo kama mheshimiwa mtarajiwa, tunaomba kwamba uweze kutukumbuka sisi kama Down Country ambao tuko hapa. Na kitu moja tu ya kusema, as Ade Masajida we are voting as a block. We are voting as a block. Mahali moja ndio tunaweka kura yetu, na Tusbah Nation ndio mahali tumechagua. Tusbah Nation ndio tunaenda nayo mbele inshallah. Odaygan la yiraahdo Maxamed Fay, anaga odayaashin soo dooran jirnay ninka horta xagga reedagoodii iyo magala feereen ninka ugu cuslaayeen waa idin keenay Real Masajida iyo habaas weynaba. xalin naftayda xogo magi kolishinka la hagaajinay maga hor duqus siyaasiyiin meel hoos aan ka soo bilaabay ma islahayn dawladda dhamaalo calam waxay isku tigay habaas weyna ma islahayn xalin dawladda dan dib u fiiriyada dawladda dhanba habaas weyna isku tagtay odayga waaba fikra waa xisaabtamay waa nin aqli badan waa lagu sheegay waxa ka jetiibkan sideeda wax la yaabo kala soo bimada ka tusbaxa ninkii tusbaxa qaatay waa tagaasir ninkii roor uma oge ninkii tusbaxa qaatay waa tagay tusbaxa waa nagala gooy hadda nagu soo bilaawday abshirtan waa bilaabat roobka waa la helaa diinta meel ay qabani wixii odayaashayna ka soo gaarnay waa danta waxay nagu qasabtay inaan arrinta aan tusbaxse nogula dhiibay aan tusbaxa u qaadno 200 oo ruux baan ku soo cunay ninkii ka imaaday dhobley Soomaaliya shalay taabqoray bay qaarkooda ka noqdeen yacni sifa un shirka un ay qayb galaan kii ka imaaday Tarbaj iyo Burmeew waa socday North maaji maxalla dhaha Butic waa socdeen Eldaas waa socdeen wajariyada wax kale way maanta la helay way soo dhaafeen wadadii baa la tuban yahay taa farxad weyn yay galiso waxa weeyaan nin walba takarti baa taabatay xanuunkii baa taabtay wixii dan u ahna reer Wajeer County way fahmeen sidaa awgeed allaha abshirta nawaafajiyo kursiga allaha noo sahlo roob iyo nabadna allaha na siiyo waxa kaliya oo maanta u imaan waxa waaye inaan idinkeena walaalkayn Maxamed Ibrahim Cilmi inaan cod idin weydin aniga tayda iyo midda wardheere isweydiis ma leeyada san marinay laakiin midda Maxamed Ibrahim Cilmi oo governorka mustaqbalka oo nagu talagalnay in uu badbaadiyo Soomaalinimadii nolosha reer Wajeer oo idil ka qabto daruufaha jiraan maanta sida abaaraha iyo maaragtay waxyaalaha kale ninkii wax ka qaban lahaa waa ninka Maxamed Ibrahim Cilmi wuxuu ahaa wasiir ka hore wuxuu ka soo shaqeeyay Oxfam wasiir ku xigeen buu noqday xildhibaan buu noqday nin maanta u leh waaya khibrad iyo maaragtay cilmigeeda iyo tabarteeda leh in uu governor ka noqdo Wajeer waa nin aan aragnay wax qabadkiisa waa nin aan aragnay wax tarmadiisa aan aragnay aan gaarayna inaan senator ka soo noqdo deputy aan noqdo waxa ila joogay Wajeer odayaasha ugaaska u hogaaminay ragga aan la tashtay ragga go'aanka ila qaatay raggaas ayaa markii aan halkaan keenana dadkii aan u keenay waa racada masaajida oo ila qaateen sabaan arrinkaas sali uu dhacay ha noqoto insha Allah aniga hadal ma badinay racada masaajida waxa tarahay quraan tuugayna Tarbaj kura ka soo tuuga qorox xaraar aada butte aada waa aadan butte ogahay waxa idin dhiban qorox xaraar ilaa diif ilaa dadjbuula aan jeclaan lahay inaan mahad idin celiyo saad u soo baxdeen saad noo soo dhaweyseen saad kuraha aad nooga ballan qaadeen aad iyo aad aan ku mahadinayna laakiin wax muddo aan idinku in sheegi rabaa kurahaas aad naga ballan qaadeen anagana waxaan idinka ballan qaadaynaa hadduu ilaahay idmo ilaahay nagu garab gala sidaan ilaahay ka baryayna inay noqoto dawlad ummadda ku nool Wajeer oo idil ay ka muuqato oo xaq ah oo cadaalad ah ilaahay cadaalad ah intuu bini aadan cadaalad noqon karo noqoto yaan rajaynayna in ka ballan qaadaynaa waxaan idinka ballan qaadaynaa dawladdaas oo dad walba ka muuqanayeen ciddooda ugu muuqanayeen reer Wajeer kulli ugu muuqanayeen reer Wajeer kali ma ahee xoolaha duunyada aan ku dhaqanna iyo xawayaanka iyo dhirta yaa idana dawlad u noqoni waxaa malaynaa Umar bin Khattab wuxuu yiri faras hadduu ku jabo jidaan hagaajinin daraadeed ana li qabsan Soomaaliya
anagan hadda maxaan suubinhaynaa geelin ku dhaqanaynaa soo aroora mashiintii jabana arka oona u dhimana soo maaha iyo argeeni iyo xoolihii dembigaas maxaa dhan marka dawlad cadaalad ilaaha cadaalad ah oo cid walba ka muuqato oo maartay dadka ka muuqdo dawladana ay dadka reer wajeer kullu shaqeynay yihiin oo meel walba wajeer ka shaqeyn kara ay yihiin yaani idinka ballan qaadayna shalayna waa sheegnay maanta waxaan ku dari rabaa dadka waxay leeyihiin maartay deputy-ga iyo maartay senator dadka markay soo galaan waa isgafaan insha Allah taas ma filinaysiin dad la wada shaqeynaa wixii ba hadda bayaanka ay yihiin oo habaas weyn markii wixii lacagta la keenay la arkaa griftu lacagta la geeyay banaanka ay taal wixii kontar la bixina banaanka nin walba azoogi oo laaluush laga qaadinayo mugdi asjir maxaa la isku gafa midda kale waxaan maleynaa laba dawladna soo martay laba deputy oo waa laga sheegtaa maartay inay deputy ay awood leeyeen dadka waxaan ku dhahaa markii shantaydan ay dhamaatay insha Allah deputy la isku layn doona maxaa yeelay waa dawlad kamil oo maartay intaas qabana sanata wala isku layn sanata maxaa laga rabaa inuu dawladda daafaca lacagta korna ka keeno Soomaha insha Allah asagana sidaas oo kooto yuu noqon doona qof oo dawladda ka tirsan oo markaan wareegayna oo maartay tuulooyinka la tagay oo soo kormeera wixii dib jir oo soo sheegay oo loo soo sheegana uu noqon doona insha Allah